بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد إله بقى معاد اسكاله إنه كل ميي مسجد كان بركيسن runtii meel wanaagsan ama meel qof muslima loogu yeero ama lagu marti qaado meeshii ugu fiicneed weeye waxaa laga yaabaa haddii dadka qaarkood yidhaaho aroos baa jiri iyo meel mool baa la isku marti qaaday iyo in meel kala fadhiista la waayi lahaa laakiin wax yar oo isxasuusina nabigeena sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaatay xadiid abaa hurayra uu wariyey oo saxiix muslim ku jira inuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam axabu albilaadi ila allahi masaajiduhaa wa abgadu albilaadi ila allahi aswaaquhaa dhulka ilaahay meesha uu ugu jecel yahay waa masaajida meesha uu ugu necab yahayna waa suuqyada suuqa mar walba waxaa ka dhaca laqwi iyo qishi iyo buuq iyo waxaan alla raalli ka ahayn laakiin shaydaan baa shaqaysan oo dadka haddii suuq loogu yeero ama meel hool ah oo ay xaflad ka jirto ama wax kale ka jiro waxaa laga yaabaa inuu soo buux dhaafsamo laakiin masaajidka intaad ku jirto ajir baa kuu soconaya haddii aadan xataa waxba samaynin ood iska fadhido ajir baa kuu soconaya marka insha allahu wax yar iska sabra khayrna niyeysta insha allahu ajir iyo khayr baad kala tagaysaan wamaca dalika faa'iido badanna kalena insha allahu waad ka helaysaan dadka muslimiinta markay isu yimaadaan khayr umay kala faa'idaystaan amaa tan masaajidka iyo hawshan aan isugu imaanay ku saabsan masjidku waa camal khayri ah waa sadaqaad iyo wanaag aan hormarsannay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay isdhahaan khayrka de in la sheego oo kanaan la sameeyey dhahaan muusan ku fiicnayn way fiican tahay fii bacdi alaxyaan mararka qaarkood in la sheego way fiican tahay maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyay wa amaa binicmati rabbika faxadith nicmada rabbiga sheeg marka sheegitaanka nicmadu waxay ka mid tahay mahad celin ama ilaahay subxaana wa tacaala oo loo mahadnaqo bay ka mid tahay marka waa ilaahay subxaana wa tacaala mahad celin aan u mahad celinayno camalkii khayriga ahaa ee aan ku soo dadaalaynay oo ilaahay inoo taam yeelay mahad celinteedi wey wayna bannaan tahay in la sheego oo shukriga qayb ka mida weeye waa qayb shukriga ka mid a sida iyo kadaalika nabiga sala allahu calayhi wasalam waa la weydiiyey waxaa la yidhi xadiidkii abu dar radia allahu tacaala canhu qiila lirasuuli llahi sala allahu calayhi wasalam ara'ayta arajula yacmalu alcamala min alkhayri wayaxmaduhu annaasu calayh rasuulka ilaahayow bal ka waran qof samaynaya wax khayr ah kadibna dadku markay ogaadaan ay ku ammaanayaanoo qofkaasi khayr badan buu sameeyey maa sha allah la yidhi yacnaha sadaqadaas uu baxsaday iyo khayrkaa uu sameeyey ajrigeedii ma waxbaa ka nusqaamaya ma waxbay u dhimaysaa nabigu maya buu yihi maya uma dhimayso bal nabiga sala allahu alay slam qaala wuxuu yidhi tilka caajilu bushra almu'min taasi waa bishaaro u soo horo martay qofka mu'minka ah maadaamay dadkii mu'miniinta ay muslimiintii ay ku bogaadiyeen ay u bogeen maa sha allah dheheen qofka khayr badan buu sameeyey dheheen waa bishaaro u soo hormartay ma aha in ajrigiisii ay wax u dhimayso tan la sheegay ee laa tubdiluu sadaqaatikum bilmani waaladaa la yidhi qofku inuu ku faano oo kanaan sameeyey taas weeye laakiin tan waa shukri allah subxaana wa tacaala aan ku shukrinayno ilaahay aan u mahad celinayno weeye wanaagun bay noo tahay insha allah midda labaad allah subxaana wa tacaala waxaan ugu mahad celinayna haddana in uu inoo taam yeelay sidaan iriba camalkii aan ku soo jirnay dhammaanteenna inaan ilaahay ku mahadinno waan mudannahay maxaa yeelay inagu markaan khayr samaynayno khayrkaa inuu inoo taam noqon iyo inuu inoo hirgeli ma ogin allah subxaana wa tacaala inoo hirgeliyey bixawlihi wa quwatihi ayaa mahad iska leh ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu jecel yahay sida maaragtay waqul icmaluu fasayara allahu camalakum aayaddaas markay culimmadu fasireen waxay leeyihiin yani qofka inuu camalka itqaaniyo wanaajiyo dhammaystiro bay dhiirigelin u tahay icmaluu alla subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahay waxaad nabi allah ku dhahdaa ummadaada mu'miniinta ku dhahdaa icmaluu camal fala oo camal khayra sameeya fasayara allahu camalakum warasuuluhu waalmu'minuun allah wuu arkayaa camalkiina
iyo rasuulkana wuu arkayaa mu'miniintana way arkayaan yacni camal midho la taaban kara leh oo aad idqaaniseen ood sugteen sameeya buu allah ilaahi subxana wa tacaala uu leeyahay oo nabigiisa uu farayaa inuu ummadda faro allahna waa jecel yahay sida xadiid kale uu inoo sugayo in allaha tacaala yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqinah midkiin markuu camal sameeyo inuu idqaaniyo dhammaystiro sugo meel alla raalli ka yahay uu camalkaa kaga soo haro ayuu alla jecel yahay intaan masjid bilowno inaynu haaf kaga tagno intaad salaad bilowdo haddaad dhexda kaga tagto ka war maxaad ka faa'iideysaa intaad soom bilowda dhexda kaga tagto camal markaad bilowda alla subxaana wa tacaala wuxuu jecel yahay inaad sugto ood dhammaystirto hadda qayb baa inoo dhammaystirantay masjidka qaybta kalena insha allahu inagunbuu ina sugayaa cid walibana waxay ka geysatay wax aakhiro agteeda u yaallo weeye ilahay agtiisa u yaallo weeye insha allah marka aynu dadaalno intay noo dhammaystirantahay waxay u baahan tahay ma aha guri lagu soo xaroonayo la seexanayo ma aha meel la dadaawanayo maxay u baahan tahay aan u dhisaynay tacmiir camiraad bay u baahan tahay marka camiraaduna waxaa weeye dadka laga sugaya inay camiraan waa innaga weeye idinka weeye dadka inay camiraan loo baahan yahay ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahy inamaa yacmuru masaajid allah man aamana biاllaahi waاlyowmi اlaakhiri wa aqaama الsalaaةa wa aata الzakaat macnaa masaajidda waxaa camira kuwa alliya rasuulkiisa rumeeyey yowm alaakhir rumeeyey salaada oogay zakada bixiyey dadkaas baa masaajidda camira tacmiirkooda waxaa weeye in lagu tukado lagu ictikaafo qur-aanka lagu akhristo muslimiinta lagu booqdo macnaha wixii camiraad ee khayr ahe cibaadaad ee lagu samaynayo dhexdeeda dhan camiraadda waxaa ka mid a in la dayactiro la kilingareeyo la nadiifiyo laga warhayo la bixiyo qarashaadkiisa la bixiyo biyaha iyo korontada iyo wixii mu'anad u baahan yahay masaajidka in la sameeyo oo la bixiyo waa tacmiiru lmasaajid hadday meel wax kasii noqdaan ama meel u ka halaabo in la hagaajiyo musqulaha iyo weysada iyo waa min tacmiiri lmasaajid kulligeed waxaa weeye dadka sidaa sameeya waa kuwa maata alla subxaana wa tacaala uu ammaanay weeye bal iskaba dhaafe inkastoo xadiidkaas sixadiisa wax laga sheego nabiga sala اllah alay slam waxaa uu leeyahay idaa ra'aytum الrajula yatacaahadu اlmasjida wa fii riwaaya yactaadu اlmasjida fashhaduu lahu biاliimaan qofkii masaajidka isagoo ka caado yeeshay ama masaajidka uun dhaqaalaynaya haddaad aragtaan qofkaas uga marakaca inuu mu'min yahay iimaan inuu leeyahay uga marakaca buri nabiga sala اllahu alيه wasalam marka tacmiirka masaajidka hagaajintiisa ka warhayntiisa waxay daliil u tahay iimaan iyo qofkaasi inuu islaamnimo iyo iimaan uu ku jiro bay daliil u tahay qof walbana inuu iska raaraadiyo oo ku dadaalo waa loo baahan yahay si ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa uu sheegay uu u helo si camalkii aad samaysay uu kugu dhammaystirmo midda kale masaajidka halla camiraa la yidhi inaysan ahaanin ee qofku uu ku talagalo waxa uu aakhiro geysto waxa ugu weyn ama waxa uu isku halaynayo bacda almowt inuu yahay waxa ugu muhiimsani masaajidka camiritaankiisa iyo ka warhayntiisa nabiga salى اllahu عalيه wasalam wuxuu leeyahay ina mima yalxaqu اlmu'mina min camalihi wa xasanaatihi bacda mowtihi cilma callamah wanasharah wawaladan saalixan tarakah ومصحفا ورثه ومسجدا بناه وبيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته نبي صلى الله عليه وسلم وحليه قفك وحيالها مركو انت كدب واحترى وانفع عملك خيرك حسنات كيس وحاكمده علمي او بريدتك او سي نشريي او علميgaasi cilmiga diiniga ah cilmiga shariicada islaamka ayaa macnaha inta badan lagu fasiraa haddaad culuum kale oo maadi ah xataa aad bartay dadka oo culuumta ilaahay uu maanta raali ka yahay ogol yahay ah oo manaafacaad iyo maartay maslaxa ay ugu jirto dadka muslimiinta waa kadalika weeye ajirkeeda aad leedahay cilmi uu baray dadka wa waladan saalixan taraka hadduu walad saalixa oo u soo ducaynayo sadaqa u bixinayo uu ka tegey hadduu musxaf uu maartay uu waqaf u bixiyey kitaab quraanihi iyo kutubta kale culumta kaleba haddii uu macnaha uu waqfay oo kale masjid uu dhisay taas weeye dhinagtaan hadda maxal shaahidkeenu
aw masjidan banaah ama guri uu u dhisay dadka masaakiinta iyo fuqarada iyo dadka maartay musaafiriinta ah aw nahran ajraah ceel uu qoday webi uu soo leexiyey kanaal uu sameeyey sadaqa uu bixiyey maalkiisa ka bixiyey oo sadaqa jaariye ah isagoo caafimaad qaba uu bixiyey intaasoo dhan bacda almowti ayay anfacaysaa marka waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta oo innaga aan ugu horeyno dhammaanteen mahadcelin kadib in aan masaajidka aan camirno wuxuu u baahan yahay o dhan aan macnaha ogaano camiraadii xagga cibaadada iyo tii ka warhaynta iyo dhaqaalayntiisaba ahayd soo gaabi baa layleeyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Somali Rochester Media subscribe.